saraakiisha booliska dalka Kenya ayaa sheegay inay gudaha dalkaasi ka baadi goobayaan hogaamiye sare oo ka tirsanaa ururka Al-Shabaab. Hogaamiyaha la raadinayo ayaa waxa sirdoonka Kenya ay magaciisa ku sheegeen Cabdullaahi Banaati, sidoo kalena waxa ay sheegeen qabiilkiisa. waxa kale oo warbixinta ka soo baxday booliska Kenya lagu sheegay in ninkaasi uu hogaamiyo koox xiriir la leh Al-Shabaab oo weeraro ka fuliyay gudaha dalkaasi Kenya. sidoo kale ciidamada booliska Kenya ayaa ninkaasi ku eedeeyay inuu mas'uul ka ahaa qarax miino oo dhawaan ka dhacay meel ku dhow xuduudda Soomaaliya iyo Kenya, kaas oo lagu dilay 12 askari oo ka tirsanaa booliska dalkaasi Kenya. baaritaanada la sameeyay ayaa muujinayay in Banaati uu madax u yahay kooxda ka dambeysay qaraxii miino ee lagu dilay dhawaan 12 askari, kuwaasi oo lala beegsaday iyagoo ka soo tagay xerada Harar Camp ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay booliska. weerarka oo ahaa mid gaadma ah ayaa ka dhacay deegaanka Degow oo dhaca wadada xiriirisa Libooyo iyo Damajaale xilli ay hawlgal roonda ah ku jireen ciidankaasi. inta badan shabaab ayaa weeraro xoogan ka fulisay gudaha Kenya, gaar ahaan deegaanada dhaca xadka Soomaaliya iyo Kenya.